Halkan waxaa taagan libaax doonayo wuxuu maanta carrabka mariyo. Weyshaan yari waxaa koob cidla uga dhaqaaqay hooyadii dhashay. Waana sababta ay maanta u dareemayso cidladan. Wayna uga duwan tahay maanta maalmihii kale soo maray nolosheeda. Maanta waa maalin aysan jirin wax yar oo naxariis ah. Waxaa doonaya inuu ku waliimaysto manaxa ah. Weyshuna lama socoto xaaladda meesha ka jirta. Waayo waa weel yar oo aan garanayn meesha cadowgeedu ka soo socdo. Arkuna wuxuu malaysan laayahay ama aamini laayahay nasiibkan maanta cagiisa ku soo doontay. Libaaxuna wuxuu isku dayayaa inuu si gaadma ku qabto. Waayo muu doonaya inuu beer dareeyo jaaniskan aysan cidna ka hor taagnayn guushiisa. Wuxuu rabaa inuu ku qabsado si dhib la'aan ah. Mana uu doonayo inuu ku bixiyo joodi iyo shaqo dheer midna. Waayo arku wuxuu dareemayaa weyshan inay tahay mid yar oo habaabsan. Waxay is leedahay weyshu agtaadu waa ammaan, balse waxay geli doontaa daqiiqadihii ugu naxdinta badnaa nolosheeda. Waxayna u hooyin doontaa gurigeeda dhabta. Waana sababta ay maanta u dareemayso tabardarrida ama orod la'aanta. Libaaxuna waa mid si taxaddar ah u ilaalinaya shanqartiisa. Waana astaamaha lagu garto libaaxa wax ugaarsanayo. Weyshu waa midaan xitaa daaqsin baran weli. Waxaana qoorteeda jabin karo libaaxa dhudhunkiisa bes. Mana haysto talo ay ku badbaado maanta. Alla tabardarri badana maanta. Weysha yari ma garanayso sababta ay hooyadeed uga tagtay meeshaan cidlada. Waana meel fagaara ah. Orodkaaga iyo xoogaaga bes ayaa wax kuu tari kara maanta. Talo kale ma jirto. Halkaas waxaa ku soo idlaaday waayihii weysha yaraa. Waxaana ku hirgalay ugaarsigii taxaddarka badnaa ee libaaxa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.